بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قيارتو إذا ونيساي ميل والبا دونيدا كجوجتان يقور والبا حلو والبا إذين تهي كسو دوادا دوبيا ميديا برتان كلنا يوتيوب كينا ام دوبيا برتكلام كلنا فيسبوكا alaabana waxaan nooga barateen inaan idiin soo gudbino hadba dalkaada hooye waxyaabaha ka dhacayo qodobadaan isleenahayna bulshada waxay xiisagelinayaan waxaa ka mid ah waa xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo saakay hoolka ee shirka ku lahaayeen ka dhashay buuq isla markaasina arintaas ay ka dambeysay baaritaano lagu sameeyay xildhibaanada amniga xildhibaanada hadii maalinta hay'adaha amniga ay noo sheegaan waxba jiray dhahaan inaan qaadano waaye maxay yeelay ma ogolaanayno in xildhibaan ama qof howlwadeena ay wax ka soo gaarto shaqadiisa soo ku jira guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu sheegay in hay'adaha amniga ku soo wargeliyeen amni darro inay jirto talaabooyinka amniga lagu sugayna ee laga maarmaanta in la qaado asigoo raali gelin ka bixiyo qaabka baarlamaanka xildhibaanada ka tirsan ee haweenka loogu qaaday baaritaanada isla markaasina maanta buuqaasi sabab u ahaa warbixin ayaan ka diyaarinay maanta golaha shacabka waxyaabihii ka dhacay ee u diyaar garooba caawa xaaladda Laascaanood oo degan iyo maanta dagaal ka dhacay ayadoona odayaasha dhaqanka magaalada Laascaanood iyo sidoo kale maamulka Somaliland ee midka kale eedeen dusha kaga tuuray inuu ka dambeeyo dagaalkii maanta ka dhacay Laascaanood qasaaraha ka dhashana oo mas'uuliyadiisa qaadanayo eedeymahaasi ee labada dhinac ay isku soo jeediyeen warbixin aan ka diyaarinay ayaa idin soo gudbin doona ee u diyaar garooba ayadoo faahfaahsan waxaan idiin soo gudbinayaa anigoo ah Mustafa Maxamed Ali kana daawanaysaan Doobiya Media bartaan ku leenahay YouTube-ka iyo sidoo kale barta kale Facebook-ga MDoobiyo haddii tahay boqoshadaada koobaad ana soo booqatay subscribe-ka noo saaray fadlan calaamad gudubta subscribe-ka taabo gambeelka fursi ama macaamiil joogto u noqon sidoo kale Facebook-ga day follow-na soo dheh fadlan follow-na soo dheh hagaag haddii aanu ku bilaawno buuq ayaa maanta ka dhashay xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xarunta ay ku shirayeen ay soo galayeen hay'adaha ammaanka ee halkaasi ku sugan ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku wargeliyeen xildhibaanada in la baarayo isla markaasina haweenka la baarayo markii la weydiiyay loo sheegay in ay jirto tuhunno ku aadan in baaritaanadani ka dambeysay markii xog lagu helay qof xildhibaanada ka tirsan ee la damacsan yahay inuu isqarxi rabo taasina ee ka dhalatay buuqiisa waxan balse golaha markii ay soo galeen gudaha buuqaasi markii dambe waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka federaalka Soomaaliya xildhibaan ruweyda oo halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in golaha shacabka looga baahan yahay cidda ku soo wargelisay in la baaro haweenka isla markaasina loo soo sheego in ay tahay qofka isqarxirba la cadeeyo marka waxaan rabaa horta marka ugu horeysa arrinta saaka arrinaa ka horeysay guddoonka waan u tagnay waxaan u sheegnay in shaqaalaha baarlamaanka laga keenay cabasho oo la yiri dad loo yeeray baa diiday inay maraan baaridii dad baa la baaray oo tuhunkii soo noqon waayay fariinta waan gudbinay ilaa hadda waxay ka qabteen mala horta taas hal ogaado xildhibaanada dhammaan waa idin ogeysiinaya number 1 talabaad maalinkii Wednesday ahayd shiraan u imaanay marka anagoo halka soo istaagnay waxaan u maleynaa 4 gabdhood joogay baarlamaanka wax gabdhaha waxaa la yiri naaga qarax ku wadata boorsada xildhibaanad warqadii la idinku keenay aleertadana waa idinka rabnaa oo ma daynayna taas waa marka labaad saaka halka albaabkan soo istaagay askari ay ugu yiri ma galaysid ma gudbaysid boorsadaada waa la baaraya aniga xasaanadan sidaa xildhibaanadaan ahay wadanka amnigiisa waxaan ku jiraa guddiga amniga dadka amniga ka shaqeynayaan kamid ahay in la wada baaro diyaaraan u ahay maxaa qasbay in la dhaho hooyada boorsadeedan gacanta gelinayna askara u dirayna konton kun oo qof aan matalaay
haddaad arrintaas soo goyseen oo qamiistii idinka soo goyseen haddaad tihiin guddoonka iyo guddiga joogtada ah maxaa wargelin noo siisiin weydeen saaka u dhihi weydeen warqadaasaa jirta waxaa idinka codsanaynaa idinka warqadii la idin soo gudbiyey haddaa guddoonka tihiin ee la idin yidhi baarlamanka inaad warqadaas wax ka qabataan marka hore markaa taa wax ka qabataan ta labaad baarlamanka lacagta ku baxda kuma baxdo adduunka dawladda oo dhan maxaa iskaan halkan usoo dhigan weydeen waxaad inaad iskaan halkan soo dhigataanaa laydinka rabaa ood qofkii soo galo shaqaale walaa baarlaman uu soo maro iskaanka meel walba iskaan ayaa lina xafiisyade saakana waa nalagu xadgudbay warqadii lagu keenay ee la yidhi xildhibaanaa isqarxinayaa idinka baahannahay annaga cabdullaahi abshirow waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu shir gudoominayay maanta kulankii islamarkaasina arrinta buuqa ka taagan ayuu marka hore raaligelin ka bixinayaa isagoona ka hadlayo xaaladaha amni ee hay-adaha amniga ee la soo wadaageen amniga xildhibaanada haddii maalintaas hay-adaha amniga ee noo sheegaan waxbaa jiray dhahaan inaan qaadanno waaye maxaa yeelay ma ogolaanayno in xildhibaan ama qof howlwadeena ay wax ka soo gaarto shaqadiisa soo ku jira marka kulankaas saas u baaqday xildhibaanada dhammaan wayna la fahmeen laakiin maanta kulankeena wuu noo qabsoomay arrinta maanta dhacday wax annaga aan ogeyn ma lahan waxaan ka bixinaynaa raaligelin ka guddoon ahaan anoo magaca guddoonka ku hadlaayo ahna hadda siyaayaa guddoomiyaha shirka jeergareynayo raaligelinaan ka bixinaynaa gabdhaha in waxaas maanta lagula kaca ma ahayn xitaa xildhibaanada ragga waa lagu sameeyey oo boorsooyinkooda kombiyuutarada waa la baaray sidaan ka warqabo marka annaga waxay ahayd amniga guud in howlka howlwadeennada imaanayna la yareeyo la taliyaasha bannaanka la geeyo xildhibaanada oo keliya inay meesha isku soo haraan si amniga aan u suganno saxaafaddana aad iyagana loo soo kontaroolo oo lasoo deeyo si ay u duubaan doodaha baarlamaanka ka socda marka laakiin annaga shirkeena guddiga joogtada ma ahayn in xildhibaan la baaro marka si qalad ay ku dhacday arrintaas ciddii marka amarka bixisana si degdeg aan ugu yeeraynaa tallaabo sharcian ka qaadaynaa laakiin gabdhaha xildhibaanada baarlamaanka ku jira waxaan raaligelin buuxda ka bixinaynaa inaysan mar labaad soo laabanaynin arrintan marka inaan nala qaadsiinaa jecelnaha raaligelintaas ay mar kale soo laaban doonin xildhibaan nuuraan siinaa aan ku darno xildhibaan nuur soo dhowo magaalada laascaanood saaka dagaal ayaa mar kale ka qarxay islamarkaasina dagaalkaasi oo u dhexeeyey ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale kuwa kale ee dadka deegaanka ee reer laascaanood waxaana dagaalkaasi saakay uu ahaa mid laba jiho ka kala dhacay waxaana dagaalka aroortii hore oo salaadii subax 5tii aroornimo iyo qadar daqiiqada ah oo ka dhacay dhanka iyo magaalada dhanka bari ee islamarkaasina maamulka somalilan lagu eedeeyey in ay weerar ku soo qaadeen waxaana sidoo kale 11 qarnimo ama 5 saac oo dagaalka mar kale dhanka waqooyi ka qarxay waxaana arrintaasi odayaasha dhaqanka ee maamulka laascaanood ay sheegeen in ay ka dambeeyaan weerarkaasi dagaalka lagu soo qaaday dadka magaaladaasi maamulka somalilan ay soo qaadeen islamarkaasina iska caabin ay kala kulmeen somalilan ayay yidhaahdeen saaka aroortii markii ay ahayd 5:59 saan filayo ama ay daqiiqada ka dhinaayeen 6 saac bay dhinaca bariga ka soo galeen oo weerar ka soo qaadeen dhinaca waa lagu jabiyey dibna waa loo celiyey fadhiisimadoodina dib baa looga saaray 12 daqiiqo waxay ka soo galeen dhinaca waqooyi oo wadada Hargeysa u baxda ah ilaa hadeer xabadii waa taa socota ina la intay soo galeen dib baa looga saaray magaaladiina waa laga fayday xagga shaalayso dhacay waa lagu jabiyey dagaalkii ay qorshaysnaa ay soo qaadeen adeer anagu waxaanu joognaa xagga hore mana garan karno khasaaruhu u dhiyay laakiin khasaaro badan dhimasho iyo dhaawacba way dhaceen dul badan way duqeeyeen sidii caadadaba u ahayd waxay isticmaalayeen waxa la wixii ay haysteen nooc kasta ay haysteen bay isticmaalayeen kuwa meel fog laga soo tuurayo iyo kuwa meel dhow laga ridayaba marka cidna hadda khasaaraha ma garan karto labada dhinacba iyadoo la teeri garaynayo inay maanta soo afjaraan magaalada laakiin fadliga ilaahay iyagii baa la soo afjaray gaadiidkoodii baa laga qabsaday tiknikadii baa laga qabsaday
dhanka kalena warbaahinta waxaa hadal soo mariyey sarkaal ka tirsan ciidamada somalilan dhanka militariga wuxuuna sheegay saakay dagaalkaasi inay weerar kusoo qaadeen dhanka kale ee laascanood ciidamada ka dagaalamayay islamarkaasina ay jab xoogan kala kulmeen isdifaacidda maamulka somalilan ciidamadooda wuxuuna hadalkiisa kusii daray in iminka gacanta inta badan magaalada laascanood ay ku hayaan maamulka somalilan ciidamadeeda maleeshiyada reer laascanood oo ay al-shabaab dabada ka riixayso inay weerari doonaan qaybta 7aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee uu taliyaha ka yahay sareeye guuto mahad cambaashi ballantaa ay hore u qaadeen oo ay rumeeyeen waxa ay sameeyeen saaka weerar bay ku soo qaadeen qaybta 7aad weerarka ay ku soo qaadeen ciidanka qaranku isagoo resistan u leh awood u leh inuu isdifaaco wuu iska difaacay si wanaagsan baan uu iska difaacay jabka inay jabaan oo ciidanka qaranka intay soo weeraraan ay jabaana wax caado u ahaa ay horeba u sameyn jireen weeyii codkaasina wuxuu ahaa sargaalkii u hadlayay maamulka somalilan wuxuuna u dambeeyey warkeyna doobiyo media a ka daawanayseen em doobiyo islamarkaasina dhacdooyinkii maanta aan idiin soo gudbinay tan iyo mar kale anigoo mustan maxamed aga tegaynaa sidaas iyo gelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu